barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani ay ku maamuli doonaan dalka Soomaaliland haddii ay ku guuleystaan doorashada ayaa lagu soo bandhigay London iyadoo ay ka soo qayb galeen kumanaan qof oo taageerayaasha xisbiga kana kala yimi wadano iyo magaalooyin kala duwan. waxa kaloo munaasabada qayb ka ahaa taageerayaal iyo xubno miisaan leh oo ku soo biiray xisbiga wadani laguna soo dhaweeyay. waxa kaliya oo aan cadeynayaa inaanu nahay hadaanu dal joogno iyo hadaan dibad joognaba xisbiga wadani. anigoo ku hadlaya magacayga oo ah Maxamed Daahir iyo magaca taageerayaashayda reer Saaxil si meeqaam sare ah si ay ka muuqato maamuus iyo sharaf ugu soo biirnay ugana mid noqonay caawa laga bilaabo xisbiga wadani. waxaan kaloo sheegay dadka xisbiyada ku soo biira had iyo jeer shaashada waxaan ka maqlaa haddaanu nahay kooxda reer hebel ama reer hebel waxaan ku soo biirnay xisbiga haddana waxaan maqlaa iyagoo yidhahda xasaanadii baan la noqonnay cabdiraxmaan oo anagu la noqon maynay weligayaadaanu ku aanaynaa. wakiilada xisbiga iyo gudoomiyaasha uu ku leeyahay wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa iyaguna ka hadlay madasha. mas'uuliyiintii xisbiga wadani ee u yimi wadankani soo bandhigida barnaamijkooda siyaasadeed ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah. maanta waa ogtihiino markii miisaaniyadda naloo keenay waxa ku jiray 36 bilyan oo la yiri hantida qaranka ee la iibin doono ayaa ka muuqata. qaabka hantida loo marayo loo iibinaya macda qawaaniin kuma cadda. qandaraasyada dawladdu qaabku u socdo cidi ma taqaano. shaqaalaha dawladda sida loo soo qoro waa argagaxaysa. musuqmaasuq in la xakameeyo oo shilinkaaga ilaashato oo macaawinada la ilaaliyo waxaana lagu xakameyn karaa shuruuc. imika baarlamaanku gacantu ku haya shuruucdaas gacanta lagu wada hayaa. waxaanu rajaynaynaa dawladda wadani tii iyadu hirgelin lahayd inay noqoto. xisbiga wadani wuxuu ballan qaadayaa oo bulshada Soomaaliland u ballan qaadaya in maalinta uu xukunka qabto uu foom gareeyo ama uu sameeyo guddi gaara oo haddii badmaayo aan ahayn guddi wadani aan ahayn guddi qaran oo aqoon-yahan leh oo taariikhyahan leh oo sharciyaqaan leh oo diblomaasi leh oo dadka aqoonta iyo khibradda iyo waarignimada lagu tuhmayo ay ka mid yihiin oo dastuurka dib u eega. caafimaadku waa halbowle siyaasadda wadani ka hortagga u muhiima daryeelka danyarta u muhiima koriinka dhakhtarrada iyo cusbitaallada u muhiima gaadhsiinta miyiga caafimaadka ayaa u muhiima. gudoomiyaheena cabdiraxmaanna waxa weyn gudoomiyaha madaxweynaha mustaqbalka ee inoo ballan qaaday ee aan maanta fariintiisa idin soo gudbinayo. haweenow maanta waad iil baxaysaan waa la idin iil tarayaa meel wanaagsan baynu idin dhigaynaa ballan weeyaan taasu. gudoomiyaha baarlamaanka iyo xisbiga wadani ahna musharaxa madaxweynaha ee xisbigaasi ayaa xukuumadda ugu baaqay in ay ka waantoobaan in ay caqabad ku noqdaan diiwaangelinta iyo doorashada dalka ka qabsoomi doonta. dadkii diiwaangelinta ka howlgeli lahaa oo ay ka mid yihiin shaqaalaha komishanka oo ay ka mid yihiin wakiilada wasaaradda arrimaha gudaha muraaqibiinta axsaabta muraaqibiintii way keeneen komishanku shaqaalihii wuu keenay wasaaradda arrimaha guduhu wakiiladeedii may keenin weli waxay codsadeen diiwaangelinta dib loo dhigo. waxaan idiin sheegayaa hadday maqnaadaan iyo hadday kaleba diiwaangelinta waa la samaynayaa. wadajirkeenu ku imanaya isbeddelku qof quri wax ma qabto gobol quri wax ma qabto magaalo quri wax ma qaban karto soo kuma midaysnin inaynu guusha wada dhalino. sida indhihiinuba hayaan kumanaankan qof waxay u imaadeen taageerada xisbiga wadani. inta badan way yar tahay in intaas oo dadihii ay isugu soo baxaan taageerada xisbi qaran. hase yeeshee tani waxay muujinaysaa taageerada xisbigani ku leeyahay qurbaha. saadaashu waa mid laalan guushuna waxa ay ku jirtaa faraha shacabka reer Soomaaliland. Maxamed Triik, Home Cable TV, London.